ilmaha ha looga caado dhigo indhahana in la laabo waa arrin diini oo ogtiin oo sharciga ku jira waa hadduu wiil yahay waa inaad tiraahdo haddii dumar aragtay iyo gabdho aad aragto indhaha laguma sii taago gabadhiina waa inaad tiraahdo raggii indhaha laguma sii taago xilliyada noocaas oo kale waa in ilmihii la tarbiyeeyo wey haddii waa inaad ilmaha barto xamaamka iyo musqulaha oo kale meelaha qabayska inayna isla gelin haddii ay yihiin keligoodna waa inayna isla gelin haddii wiil iyo gabar yihiinna waa inayna isla gelin oo ilmihii marle waxaa laga yaabaa waalidiinta qaarka ilaahay ilmaha badan siiye oo kale inayba arrinta intay wakhtiga fudaydsadaan ay yidhahdaan orda musqusha galoo soo qabaysta oo 3 iyo 4 hal mar la israaciyo war ilmaha hala kala reebo oo hal iyayna is arkin iyaga naftooda cawradooda ilmaha looga caado dhiga cawradiisa inayna cidina arag oo ilmaha cawradiisa aan qofna ka arag hal ogeysii wiilasha ayaan loo ogolaanin meelaha dumarka keligood joogaan sida aroosyada ay keligood yihiin oo kaliya inay ilmihii wiilashu ka qayb galaan yaan loo ogolaanin mushahada aflaamta iyo waxyaabaha filimka iyo jaraa'idka ay sawirada xunxunka ku yaalaan iyo waxyaabaha noocaas ilmaha ayaan loo ogolaanin caqiidada wanaagsan ilmaha lagu baro oo hala baro iimaanka billahi wa malaa'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil aakhir wa bil qadari khayri wa shar iyo waxyaabaha lamida ilmaha hala baro khashiyada eebbe subxaanahu wa tacaala iyo cabsidiisa ha lagu barbaariyo maxabada rasuulka iyo ta allaha lagu barbaariyo subxaanahu wa tacaala walaalayaal waxaa loo baahanya ilmahaaga qubuurta oo kale iyo markii la aadayo ilmaha marmar intaad kaxayso qabriga soo booqda oo wacada dhig inuu waxaan ogaado ku soo waansamo isbitaalka qaybta dadka jiran ay jiifaan xitaa soo marka qaar intaad ilmahaaga kaxayso gee oo ha soo arkaan dadka dhibaatada meesha ka jirta ammaanada iyo runta iyo akhlaaqda wanaagsan oo dhan ilmaha lagu barbaariyo muraacaadka in la ilaaliyo xuquuqda dadka kale gaar ahaan xuquuqdii waalidiinka ha la ilaaliyo aabbaha iyo hooyada hortooda inaan la soconin aabbaha iyo hooyada hortooda inaan cunto la cunin aabbaha iyo hooyada inaan hadalka kor loogu qaadin aabbaha iyo hooyada warkooda inaan la diidin aabbaha iyo hooyada inaan uf iyo kelimooyin xunxun lagu dhihin aabbaha iyo hooyada in loo jilicsanaado oo janaaxii dulliga ah loo sameeyo war umuurta noocaas ilmaha waa in lagu tarbiyeeyo oo loo sheego weeyaan silatu rixm iyo waxyaabaha noocaasa in riximka la xiriiriyo jaarka oo kale iyo dariska waa in ilmaha loo sheego umuurta al-amru bilmacruuf wanahyu can ilmunkar in waxa fiicanna la amro waxyaabaha xunna laga reebo ilmaha waa in lagu tarbiyeeyo oo umuurta noocaasa ay qaataan dad wanaagsan oo rafiiqa ama dad wanaagsan oo ay ilmuhu saaxiibo ka dhigtaan waa in loo sameeyo oo rufaqa saalixa tacaawun iyo wax la yidhaahdo iskaalmaysi waa in lagu tarbiyeeyo oo ka dhaxayso ilmaha waa in loo sheego wax la yidhaahdo lagu tarbiyeeyo afiqa nafsiya inuu ilmuhu naftiisa ku kalsoonaado naftiisa inuu ku kalsoonaado qodobkaas waa muhiim waa inaad aad ugu baraarugtaan ilmuhu waa inuu naftiisa ku kalsoonaado waa inuu wax qabsan karo isagu cuntada waa inuu cuni karo musqusha waa inuu geli karo wax iska habayn karo waa inuu isagu dharkiisa soo qaadan karo dharka ha feeraysto isagu war waxyaabaha noocaas ilmuhu markuu waxoogaa gaaraba ku barbaariya haddii aad weligaa gacanta ku hayso berri muxuu noqonayaa sameydaan arag hooyi aabbale kan haddaan ka maqnahay waxaa weeyaan waxba cuni maayo oo inaan la jooguu rabaa hadda kaas waa dishay adaa dilay sooma mid oo aabbihii un daba ordi soomaada aragoo rabo aabba waxaan isii oo isagu nin weyna soo wax lala yaabo ma war ilmaha tadallulka noocaasa hayaan laga badinin ilmahana fiqa nafsiya iyo kalsooni inuu naftiisa ku kalsoonaado hala baro waxay dadku isku dhaafaana umuurta noocaasa wey adigu waxaa laga yaabaa inaad isleedahay ilmahaaga jeclow ilmahaaga u roonow ilmahaaga ka dhig hadda intaad saa ka dhigaysa isagana waa sii dullaynaysaaya ogow waa in ilmaha lagu tarbeeyo atadxiya wax la yidhaahdo wanaagga ilaahay darti inuu u sameeyo tusaale haddaan soo qaadanno waxaad u baahan tahay aabbi iyo hooyo waa inaad bixin karto ood adigu isdhaafin karto wax fiican baad aakhire helaysaa diintan dadaa u soo dhintay oo dad baa diintan dacwadan soo wadi jira waa inaad ku samaysa ilmaha waa inaad barto haddii uu xanaaq yimaado oo kale ilmuhu naftiisa inuu celin karo oo dabti nafsi wax la yidhaahdo uu naftiisa haysan karo waa inaad barto isticdaadaad ilmaha waxa uu qaban karo iyo waxa uu diyaarka u yahayna waa inaad ogaato arrintaasi waa muhiim waa inaad ogaataan tusaale haddii aan bixiyo waxaa jira ilmaha qaar ku fiican daraasada xitaa daraasada nafteedii mee qaar baa waxay ku fiican yihiin qur-aanka inay xifdiyaan qaar baa xisaabaadka ku fiican qaar baa ku fiican inay naxwaha iyo waxyaabaha garaamarka bartaan
قاربا وحكا قاربا انت سو دنب فاهمينين ربا إن شقوينك جعنت لقى قبته مكانك يا وحيابا لميدا إن سميان ومهندس أمورتها يسوي وقعمها كبرت حرفضا إنه برتقار المو هدو ميل كفشل أبيه يسوع ما دارك هدو المو دراسدي وحبك كيني وايو أو دراسدي سي وكفشل مو كله عمر والبوضع سنة كوادع سنة كي كلوان وعلى ليه كان فشل ويه ويلقوا يأرض رافي درعانو قال يا بوق يا قليل بو يقول له سو سيدا اسمه هدو المو هلكا كفشل مو ميل كلو كفي عيه وإن المواهب تيسا سو صارتي وحيابها وكفي عيه إن الأوقاتها لقى ربا مركب ميل كلو وكفي عيه هيبا جرته وحلو بهن يا ولا ليال المها إن لو قديقو تحذير أعمى وحليرا إن إسكت تقليدية تقليد وحوي إسكت دبقلهم تصالم عنك وضع وضمان هذا النمد وضمان كلام النمد تربية بدن بانو باهنا وضمان النمد المها